ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد وقرين إلهي بمهدسك سبحانه وتعالى قوبتان شرفت بدن وناكسن نقول كل مية أنغو مسلمين أنغو صوماليين أولنا أنغو بيلها سيدة قاركا هلكا مانتا يقول بلانسنا المركة لبعض وحان أمها العلينية dadka ka soo qayb galay ee soo ajiibay xafladan waxaan leeyahay man lam yashkur الناس lam yashkur الله ismadu iyo xildhibaanadu iyo dawladaha baana salaanta islaamka ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. سلامك بعد أنا ونبضون جامع صلاة دوغانا وعن وكيل آخر سلطان محمد جامع شريف وعن لا الحمد لله رب العالمين. أنا وعن ليش عن كسر تشيدنا هاي سلطانك وكيل كوي وكيل شيء وعي هاي ولا سيرين محا حسنين أنا هاي وكيله وهاي إن أنساس أفرديو بانو سو استاجي وحكى لو ما سوى استاجين ساس نوعه هدية أنا أمها العليا كسوق قيب قلياشة حنفراها كسوق قيب قلي بالليل اللي كيمد ضلك كلام بدنا كيمد قال كعيا كيمد بوساسة كيمد ولا الكسة يكون كيمد بنديل اللي يخبيا أنت كدحله بانو أمها العليا الحمد لله رب العالمين لا هبا ما حد عاطني أنت هدان كجبه وعن لا أنا كلية سلطانك دعاء لا أنا مركوا دعينا هيا إله النور أكبر إله النور أجيب إله وين نقدع إله وين نقليع إله أنت أنت لشعفي إله أنت كسر شقيس ربي يوم إله النحريس وحن سلام يا مرحبا دولة فدرال كاسرة الرلات سنالنا يحل لنا دولة كقل مدينة مثل بدلان ما من كقول الكمين اسمها عباشة حقرتك إجدا بيشا سعد حبلها شرفت العيد يجيهم بلبدا بيراني أنت كسر دقشي إذا مدى أمني أو قرأت أمامك وتاجن وسوق تجنيه شركة إنه قبصومه تمام وحكم سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة أنا يسمى بيشا ريم محمد حسن الكسي وحلو تلقى تاجريدا iyo garabistaaga nabadda ay isla garteen labada beerood oo ka dhaqan gashay galbeedka gobolka Mudug baa lagu taageerayaa ku talagalnay runtii dadka deegaanka oo dhan baa nabadda soo dhaweeyay oo qaatay oo labada beerood annaga waxa gaar nagu ahaa haddaan nahay reer Maxamed Xasan dadku way isxantaa gobolka Mudug ama Soomaaliya ama kililka sharaado wax ka deganay deegaankaas oo dhan xanaan runahayn baaramna inaan reebno oo dadka lagu xanto xantaasa waxay tahay dadku waxay dhaareen xaasan waa tashkiid badan oo colaadday waxay ka ahaayeen barbar maamulka hore run ma ahayn oo war xalay ahayn laakiin waxaan ku reebaynaa beeraha hadda soo fadhiyo leerkaasi iyo sacad dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta la fiirsanaysa inta la maqlays waxaan maanta ma jeesaan u gudbaynaa wax xabaar ahaan inaan nabadda la warjibaar boqolkiiba boqol u nahay soo dhaweynteeda dhaqangelinteeda taageerideeda iyo aanad u garab taaganahay baan saasan xafladda u dhignay iyada ku soo dhaweynaa waxaan kaloo samaynaynaa maanta qoryahan waa qoryihii lagu dirinayay oo aan isku leeyahay Soomaali haddaan nahay beesha xasbuulba iyo beeraha daarood iyo leerkasiya sacad inaan qorigii dhignay oo dhulka dhignay oo aan ku istaagnay oo aan nabad qaadanay baan inta tusaynaa waa qalbid ku horeeyo sameeyana halkaas aan dhignay waana ku taaganahay waxaan sameeynaa oo kale هذا المشهد ده صار سميرنا قرية ما كويس تاجني وعنا قالنا كتاب كسلاهي وعنا رمنا خوف والبا وعنا قالين أو صومالية أو إسلام أو وراء إلى ركوب هذا الكتاب كاس وعنا خوينا وعنا رمنا ركوب حنو وعنا خوينا شنو وعنا رمنا ركوب قالنا ساسا نقول إنسان صومالي هداتين
أما تهين بيرها هدا وحنا قد حيا كتاب كاس أول يا الله قد حيا وحيحوا ودتك الصومالية دحم مراي ودتك الصومالية ودا يسكون لاينا قوم سده وحي صومالي سبين جرتينا وكسر نقولني وحنا وراها يا كعصرنا صومالي في المدن عدل بو وحنا وترسليسا إنay kaas ugu xisaabtamaan anaguna kaasaan kula xisaabtamayna bal ogaada maanta waa marxaati inta ka bedelena cidina wata waa inaga khaldan waxaan kaloo reebaynaa in loo rajay reemaha xasan waxay hormadu yihiin colaad iyo dhibka waxa jira runtii ma ahayn magacaan fuul cid kasta waa nagu xamaatan maashees cid kasta gudbisay runtii saas ma ahayn laakiin maanta waxaan ku soo afjarnaa kitaabkaan qaadanay kitaabkana qoriga lacagta ku hayno saasayna xafladu ahayd lamaan ummadda Soomaaliyeed oo xafladan isugu timid rag iyo dumarba gabdhihii iyo dhalinyaradii iyo ehelkii hawsha waday oo xafladan quruxda badan loo dhigay aad iyo aad u mahadsan yihiin ehelka soo ajiibana aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa walaalaheena ergada ah oo nabadeynta aan wada wadanay inta hadda bil ku saabsan oo maanta iyo ka hor ilaa Bedelay ilaa Teerrage ilaa Galdogob aanu aad iyo aad nabadda uga wada shaqaynaynay tani waxay ka mid tahay nabadii xafladan waxay ka mid tahay nabadii ay soo socday iyo nabadeyntii iyo farxadii bay ka mid tahay waxaa naga dhabaa kitaabkaas Qur'aanka oo jaamaca inaanu qaadanay awalna haysanay kuna dhalanay kuna dhaqanay kuna soo dhaqmi jirnay maanta ma qaadan weliga yaa haysanay dibtii Soomaaliya ka dhaxdhacday oo qoriga nagu rartayna Ilaahay waa naga reebo midaas la ogaado farxad bay noo tahay ummadoo dhan bay u tahay inaan nabad soo jeesanay baa loo arkaa ay anaga noo tahay oo qaadanay kitaabka maanta midta ugu sidnaa ولادي يورجي جدوات الله نوغا دغاي نبات عبد الله حسن التكي كسو دو ميكروفونك وقتينا aad buu koobnaan doona wana misray maanta inaysan ka koobnayn xafladani waayo waxa la isku yimid wax aad iyo aad u wanaagsan oo khayr ah khayrkuna cid uu gaar u qofteeyo marahan xaqiiqatan waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa soo dhaweynta ay sameeyeen walaalaha beesha lalkasee أول كمالين كوبادو آنينيد إلا إيا مانتاي وحكلا قوام ماله هدايت هاي سودوين هدايت هاي هديلا قدرو هذا المعان وجه فران لنع والبا فرحدا عن آدي آد هاي تهاي وحن لسوكو بكرنا يعني كركلنا ماشان وانكمل علينا بغل كيلو بغل آدي آد ولانها ولا ليالتساكم الله خير قارهان وحن مانتاي سيقارو ومهد علينا walaalaha reer Maxamed Xasan oo runtii soo bandhigay fantasiyo aan caadi ahayn inama aan caadi ahayn soo bandhigeen waxaan leenahay walaalayaal waa dhiirigeliseen nabadda wana dhiirigeliseen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa isaakum allah khayr baan leenahay walaalayaal aad iyo aad baad mahadsantiin kelmadda aan rabo nabadoonkii iga horeeyay halkan uu soo istaagay wuxuuna ku istaagay qorigii anuguna waxaan rabaa inaan ku istaago maanta وشاس وقتها قبيلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما سنتهي قبيلي قريبا وهاري انت واسلف على سماك وعن هذا الكسر لوينيا نبضون عبد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي وحيلتاي maantay war waa soo dhaaftay kartoomo in wax lagu qoray maraysa kartoon baa hebel wax ku qoray ma maqli jirteen maanta kartoon baa wax lagu qoray waxa la qoray nabad oo geed qurxiyo noo sheegay iyo aan walaalayaal dhaqankeeni soo ceshano oo geedka qurxana ku qoray iyo qarannimadeena aan wada doonano oo qurxalatiis ku qoran insha Allah kartoonka noo sheegay inaanu nabad aan saruud ku xirnayn xafladan maanta sawirkeedu yahay marada cadaway dhaqankeeni Soomaaliyeed oo sharafka badnaa inaynu soo ceshano
ومرض علامة الدلماء قدوم مرض علنكو waxay tilmaamaysaa markaanu nabad noqonno markaan dhaqankeena Soomaalinimada iyo sharafkiisa soo ceshanno qarannimadeennibaa soo noqonaysa saddexdaas calaamadood u taagan yihiin geedaha quracda horteena ku safan waxaan aaminsanahay maanta xafladani nabaddu waxay ka soo bilaabatay geed meegaag ah oo ku yaala Taarage meegaag hoostiis baanu istaagnay bandiladey baanu tagnay waxaanu siniri abeeyo sidaasi ka fiican ma la yeeli karaa waanu soo tagnaa waxaanu galdoog waxaan niri waxa aan dhigna gogol maahayna waa ku celin gogolba miday ka dambayso waxay ka dhigaysaa wax kale maxaa keenay nabadii baa cayilaysa waxaan rabaa halkaa inaan uga mahad celiyo walaalaha leelkase gaar ahaan walaalaha reer maxamed xasan oo runtii sida ay sheegayaan la oran jiray waa nimanka dagaalka hormuudka markay maanta nabadii hormuud u noqdeen oo qoriga cagta saareen oo kitaabkii ay gacanta ku qaadeen waxay haddana noo qaybiyeen kutubihii macnaheedu waxa weeye maydinku wallaahi baa nabaddu idinka dhab tahay nabaddu waa naga dhab bannaanbax nabadeed baanu uga soo baxnay hobyo iyo gaalkacyo iyo bandirale iyo intaaynu degannahay oo dhan walaalayaal waxa aad noo soo bandhigteen oo kartoomada ku qoran oo sida dadba dhaarta ah oo qoriga dhiga ah oo kitaabka qaada ah waa in la qaadanay aad iyo aad oo mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay xafladan martiqaadka si guud horta waxaan ugu mahad celinayaa galdogob guriga nabadda si guud waxaan ugu mahad celinayaa beesha leelkase walaalaheenna iyo beesha Saacad Siciid si gaar ahaan anagoo joogno balliga quracle ee beesha reer Maxamed Xasan baxamaro waxaan leenahay hadiyad lama ilaawaan ah oo wadata dahabkii ma aha inay tahay fashion ma aha inay tahay book waa dahab original iska fiiriya furbaa la igu amray waan furayaa insha Allah waa furan yahay waa fargashigii waa sad iswato waa katiinkii qoortii iyo dhagihii iyo waliba fargashigii waxa waaye waa sadaqa jaariya ilaahay waxaan ka baryaynaa meesha ka bixiseen quruxdii gabdhaha insha Allah ilaahay idin qurxiyo jazaakallahu khayr wa jazaa waxaan leenahay dadka isku milmay waxaan leenahay nabadda isku milantay beesha Saacad Siciid iyo leelkase yaan dib loo kala saarin ilaa hobyo iyo galdogob ay isku xiranto hadiyadan maanta nala siiyay oo qaaliga ah oo dahabka ku jira maama noo furtay aniga hadda ruuxiga hadaan furo inuu kala daatay u dhowdahay iyo aruuriya farxadda inta iga lumayo sagaal lumine walaalayaal ajri xasanaad ilaahay aan ka siiyo meeshaan maalka laga keenay ilaahay wax khayr leh ugu bedelo meesha ka soo qayb gasho salaamaya magac kasta iyo maamuus kasta ay ku fadhido runtii xafladda wixii la oran lahaa waa la yiri aanu mahad celiyo walaalihii xafladda sameeyay iyo walaalihii soo ajiibay oo labadooda gacmooda inta haddaan ka gudbo runtii waxaan ka raali gelinaynaa walaalihii meeshaan lagu casumay xafladda wixii maanta ka khaldamay bilaadan baana ma dhamaystirin walaalayaal naga raalli ahaada wixii maanta naga khaldamay casumaadda hoos baa la kafto waxaa la yidhi xafladdii Saacad iyo Raamaha Xasan oo kaliya ama wax ku hoos laaban ma musharaxnimada maanta sheeganaysaa maadaama waqti ka dhamaaday wali waqtiga ma dhamaan waqti kale musharaxnimada sheegan doona aad iyo aad u mahadsantuun